ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayo Generaal Abuukar Xaaji Warsame oo loo yaqaan Xuud. Generaalku wuxuu hore uga tirsanaan jiray ciidamadii ama saraakiishii dawladda dhexe, wuxuu soo hogaamiyay ciidamo kala duwan. Imankana waxa uu ka mid yahay wuxuu aad uga soo horjeedaa maamulkii dhawaan looga dhawaaqay Hirshabeelle isagoo ciidan iyo abaabul culus halkan ku haya. Generaal soo dhawow marka hore. waa dhawahay salaan kadib wixii su'aala jawaabtooda diyaar aan u ahay. welcome. waxaan rabaa marka hore halkan waxaad ku haysataa ciidan, waxaad ku taagan tahay hadaf ama ujeedad leedahay. maxaa lagugu yeerayaa? ciidankan waxaa loogu yeerayaa halgamayaasha shacbiga Hiiraan. mar hore waxaa soo baxday in jabhad ay yihiin oo jabhaddii waa ka bedelnay, waxaan u bedelnay magac kacdoonka shacabka Hiiraan. kacdoonka shacabka Hiiraan. maxaa laga kacdoomay marka? waxaa laga kacdoomay waxyaabaha qaladka ah ee dowladda federaalka ku samaynayso Hiiraan oo ay ka mid yihiin Hirshabeelle sidii markii hore loo dhisay iyo sidii markii dambe loo dhisay. qaldaadkaas oo aad u tiro batay xuquuqdii Hiiraan oo 6 gobol oo Soomaaliya ka mid ahayd haddana 8 ka mid ahayd inay dib u dhac ku sameeyeen dowladda federaalka. taas waa mid laga kacay. markii doorashadu ka dhacaysay Hirshabeelle waa joogto musharaxiinta ka mid ahayd. marka maadaama Cali Guudlaaw ku soo baxay oo adigu damaca ama ujeedada aad Hirshabeelle u tagtay aad ku suurtagal weysay, taasaad ka xanaaqsantaa bal oran karaa? taas kama xanaaqsani. maxaa dhacay? wax musharax inay meesha yimaadaanba waa la diiday. xoog iyo jujuub iyo qasaba meesha lagu dhisay. dadkii musharaxiinta oo dhan wax ka soo qayb galay male. nin isharxay dowladana isharxatay ayaa meesha ka muuqday iyo dad manxiis u ahaa oo annaga reer Hiiraan ah. taas waxaa diiday ummadii Soomaaliya oo dhan, waxaa diiday reer Hiiraan si wax u dhaceen, waxaa diiday ra'yul caalamiga oo dhan. maxaa dhacay? kama dhicinba meeshaas doorasho. waxaa ka dhacday qasab ninkan wata doorta, haddii kale wax soconaya male. caalamka aad diiday iyo ra'yi caalamka iyo Soomaali ha oran anaa diiday dheh. anaa diiday iyo reer Hiiraan. maxaa ka maqan reer Hiiraan? reer Hiiraan waxaa ka maqan xuquuqdii ay ku lahaayeen meesha ayaan waxba laga siin. waa kuu sheegay meel qasab. xuquuqda ka maqan waxaa ka mid ah wixii lagu heshiiyey oo ahaa in reer walba uu qaato ayadoo markii horeba qalad u dhisantay ayaa haddana laysku diiday oo wixii beelaha ay lahaayeen baa nin qaatay. waa ka midka waa
hirshabelle marka la yidhaah qabaa'ilada degan ama beesha hadda adigu aad ka dhalatay madaxweyne ku-xigeenay ku leedahay maamulka halkaa laga dhisay gudoomiye baarlamaana leediin gudoomiye ku-xigeenna leediin iyaga laftirkooda beledweyne yimaadeen iyaga ma la kulantay si aa u tashataan waxaan ku yidhi wax hirshabelle la yidhaah ictiraafsanay ma jirto madaxweyne ku-xigeen aniga iima jiro madaxweynena iima jiro hoosa laga soo bilaabaan ku yidhi warkaygana isma khilaafo ayaga raadinna warkaygana iskhilaafo hirshabelle xagga iska dhig wixii kaloo wariyaa weydiinayso tafadal waa tahay soomaaliya dhaqanay ku dhisan tahay oo maaragtay ergo ama odayaal dhaqameedyo ama beelaha waxay leeyihiin ogaasyo waxay leeyihiin nabadoonno odayaasha samada ka taliya oo isugu yimaada ogaaska adiga beeshaada ah arrintan qadiyadan hadda duurka u joogtood ciidanka u aruursato wuu ka aaminsan yahay waa maxay adigu marka waxaad raadinayso ogaaska waxa ku xiran wixii maskaxdiisa ku jira ogaaska anugu maskaxdaada saan ka dhig ma dhihi karo codkiisa iyo maskaxdiisa saas kale wuxuuna xaq u arko ayuu ka hadli doonaa arrintan waa bilow ogaaskana waa ka hadli doonaa bal yaan la degdegin halaysi sugo waa ka hadli doonaa ogaaska waxa ku xiran wixii maskaxdiisa ku jira ogaaska anugu maskaxdaada saan ka dhig ma dhihi karo codkiisa iyo maskaxdiisa saas kale wuxuuna xaq u arko ayuu ka hadli doonaa arrintan waa bilow ogaaskana waa ka hadli doonaa bal yaan la degdegin halaysi sugo oo rajaa laga qabaa in ogaas ka hadlo ka hadli doonaa deegaankan iskool ma laha isbitaalna ma laha soo kaagama habbooneen si aad jiilasha ama caruurta deegaankan ku dhaqan iyo hooyooyinka
aad ka timid gaar ahaan dalka aad ka timid ma ogola generaalada Afrikaanka ah ee mayalka adag inay soo baxaan ma laga yaabaa inay arrintan dambi kugu yeelato oo xuquuq aadanaha iyo lagula xisaabtamo haddii aan wax dilo ama wax dhibo ama wax dhaawaco wala igula xisaabtami karaa ma jira wax international oo wali kula soo xiriiray waa jiraan waana wada hadalnay qolada sheegaysa laftigeedu waa ila soo xiriirtay waana wada hadalnay waan u sheegay wax dhiiga inaan daadinay maxaa dhacay arrintan Soomaaliya ayada iska bisilba in dhiig lagu daadiyo looma baahna dowladda laftigeeda ku bislaynaysa inay kursiga ka digto dadka oranaya Janaal Xuud muddo dalka ka maqnaa wuxuu u soo noqday inuu dagaal galo danaaladii hore soo xasuustay dadka noocaas maxaa oranaysaa dadkaas waxaan leeyahay caqligiina ka saar ra'yigaas Soomaaliya haadaanay ka dhacisay Soomaaliya haadaantay ka dhacisaan ka qaban aqal xumadana iska saara dagaal uma socdo umana soo noqon umana iimaan umada Soomaaliyeed say ku nooshahay maanta waa aragtaan markaan ka soo qabta caasimadda say u egtahay jeedkeeda fiiriya dadka jooga fiiriya away xuquuq u lahaayeen adiga kugu taakulay aniga ciidankaygu waxa ugu taakuleeya reehiilan ma jiraan wax dal dibad iyo gudaba waxba nooga yimaad aad iyo aad jenaraal kugu mahad celinayaa soo dhaweyntaada qiimaha leh aqbaladaad naga aqbashay iyo waraysiga aad nasiisaba codkarnimadaadana waa kaaga mahad celinayaa dibintaan u kulmi doono waraysi caynkan oo kale ah waa aniga iyo bahada saaxiibadeeya makraan dhaqane iyo cabdiyare oo runtii kaalin weyn ka qaatay waraysigan oo gabi ahaanteena leh nabadgelyo